Banka.com. nimco muuse axmed waa la dhahaa waxaan joogaa magaalada Hosteri kaamka Traaskhiiqan marka dhibaatada aan meeshan ugu haysta ayaan kaaga warramaynaa dadana Soomaali nahnay waxaan bishii 12keedii xageed ka timid waxaan ka yimid magaalada Somaliland xageed soo martay markaa waxaan soo maray Liibiya Itaaliya Hosteri Hosteri badda soo maray waxaan ku jiray habeen iyo maalin maxaad uga soo tagtay wadankayga dee dhibaato naga soo tagnaa kulli iska garanaysa Soomaaliya dhib baa ka jira waa dhibaato imisa safarkaagu qaatay imisa bilood imisa maalmood shaadu 5 bilood 6 bilood ilaa 6 bilood safarkayga bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika Soomaaliya waxaan ka soo baxay Ethiopia Addis to Sudan to Libya to Italia wajartay maxaad kala kulantay safarkaagii saxaraha iyo Liibiya iyo Suudaan safarkayga waxaan kala kulmay adigu khayr bay kala kulmay insha Allah markaan bad soo galan bay igu maxsuuso badnayd habeenii maalin aan ku jirnay ee doontina ugu dalashantay doontina ugu dalashantay habeenii maalin aan ku jirnay laakiin wallahi waa ilaahay uu nagu badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamiin kadib maxaa dhacay markii doonta markii dalashatay waxaan badbaadiyay marka Mareykana imisa qof hayday waxaan hayn adigu 380 qof oo waxaan hayn laba doomood baan hayn marka cid wax ma noqotay ma cid wax ma noqon laba dumar aan ugu dhalay waxba cid ma noqon alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas Talyaaniguna keenay Talyaanigii baa kaamil lagu xareeyay qaarna faraa laga dhigay qaarna way diideen annagu waxaan ku soconay Suudaan waxaan dhahnay waan dhaafeynaa Hosteri baan qabata fara naga dhigtay marka imika halkan baad degan Hosteri imika ayaa 5 bilood ba joogaa xaaladaada ka waran xaaladaydu wallahi walaal ma fiicna kuma fiicni Hosteri ma wanaagsanaba waayo Hosteri waxaan nagala soo kulmay dhaawac aad culus waxaan nagala soo kulmay muxuu haayay dee waxa ay iyadoo naqaabileen iyadoo wax xalaalo wax caadi ah noo qabanin hadda siraad ka baxna faraaka ayaa la meesha soo qabanayaan xaaladeedu wallahi Hosteri ma wanaagsanaba maxaa la idin qaabili laayeen waxa ugu wacan qaabilaada dee meesha kaamka waxa haysta systemkeeda ma garanayna anagu laakiin qaxoontigii bay diideen ba qaxoontigu ma qaabilayaan way celiyaan ba qaxoontiga badankooda laakiin dadka Syria iyo Afghanistan maada wadankan si weyn u soo galay si weyn baa loo qaabilaa si fiican baa loo siiyaa sharciyada marka Afrikaankii waxa la wax loo qabanay ma jirto Nigeria dan Soomaaliland dan Eritrean meeshan ku dulmanay waayo maxaa ugu wacan meesha waxa ugu wacan maamulka sare meesha jooga waa Afghanistan iyo Syria waxa meesha ka maamulaha wajartay safarkaaga hadan ku noqdo kharash intee lag baa kugu baxay waxa igu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxa igu baxay 4800 oo Liibiya 4800 oo Liibiya iyo 1500 oo halka lagu keenay wadankan adu waxa igu baxay 8500 ugu yaraan 8500 dollar ha marka hadii aad ogaan lahayd safarkaaga halistiisa ma soo galaan mana soo bixeen lacagteeda waan iska haysan lahaa mana soo bixeen mana soo doonteen haddaan saamooday lacagteeda waan iska haysan lahaa wadankayga wax kaga qabsan lahaa hadeen mooday ruunaysata yaad uga soo tagtay Soomaaliya waxa kastoo hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabahay iyo dadka awlaadeedii laba ciyaal aan dhalay inaan baan dhalay imisa jir way labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanadii 9 bilood Amir iyo Amira la kala yiraahdo goorma kugu dambeysay waxa ugu dambeysay bisheedii sanadkiis 2014 bishii tobnaad marka misla xiriidaan imika waan isla xiriirnaa waan isla hadalnaa maxay ku yiraahdeen de wallahi walaal markaan dhaawacmay waa loo sheegay inankaygu wuxuu waxaad samaysay hooyo waan ogahay inaad dhaawacantay inaan ku ogahay ilaahay ha ku fududeey dhaawac baa igu dhacay halkan dabaq halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaad uga soo dhacday walaal de meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahnay meesha cadaalad ma taalo moobila iyo wax iyadu u dahan Syria ma isleenay kadib Syria waxaan isleenay waxay noo soo qaadeen booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan imika inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga kulligeegi dibadda ugu dhaan seexda dadkii naga qaatay moobiladii alaabta naga qaatayna dadkoodii baa markii uu turjumo hadlay afkiiba garanayeen annagu dhibtaasaan haysata kadib aniguna aan ku soo noqday kaamkii markii dibadda la saaray dhibtaa darteed baan kaamka inta ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa aan siri dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad iska soo tuurtay dhibaatada iga haysata meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan ragga kala warramayaan wadanka waa anaga aan ku qaabilsanayn haddaan Afrikaanna marka dabaqa iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay bad inaan iskaba dhintaba oo inaad istishaad doonaysay noloshaygu igu adkaatay dabta maxaa dhacay
meeshan baan meel baan hayn walaal meesha meel wanaagsan ba ma haba hay dabaqaad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna dee afar cishan kuma ku jira dhakhtarkan aalay hay maxay see wax ku gaadheen la gacantan labada gacmood ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah dee wala taagana ku waramaya waan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa ku igu soo celiyeen meeshii igu soo celiyeen kaamkii igu soo celiyeen imka fiicanta alxamdulillah rabbil caalamiin kuma fiicana wala maxaa ku qorshaysay markaa wax laalo waxaan ku imka dee ka baxbaan isla wadanka Sweden u baxbaan isla way soo qabteen maalin way soo qabteen wadanka iyo halka igu soo celiyeen dhaawaca wadankan baad ku dhaawacantay xaq u leedahay joog bay ugu dhahan xaqan ku yeeshay sharci iyo waxaan doonayaa baan ku wariyo bayt fiican la geeyo kadib dee guri fiican la ima geen xilligaana interview iyo waxba toona laga maqaan sharcina la ima siin halkan baad xaq u leedahay ugu dhahan xaqna kama hayo xaq iyo xaq watoona marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inayna horta dadka Afrika imka jooga ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmiyaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay dee khayrkeeda Ilaahay idin kulisiyo wana la aragteen adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale soo maad maqli jirin markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been imika waxaan ogaaday inay dhabti tahay berefooda aya dhaxamo gaajo Afrika ma kuma gaajoon jirin baa halkan baan ku gaajoonaaba aad baad u mahadsantahay walaal adaa mudan walaal calanka.com